tahay bal dhalinyarada habeenkan caawa barnaamijkaygala qayb qaadanaysaan mid iyo laba iyo saddex kolba u baaqayaa ee maxamed cabdiqani dawladna aan dhahda agtayda kaalay soo dhow wandhawayseenad ku soo dhow barnaamijka ciida telefishinka qaranka waan ku dhowo walaalo ugu horreyntii fursaddan aad siisay awgeed anoo ka faa'iidaysan halkan waxaan ka salaamayaa aabbahay iyo hooyaday walaalahay faamilkayga waxaan kale oo salaamayaa macallinkaygaan aad u jeclahay yuusuf sheekh muumin subxaanyo waxaan kale oo salaamayaa kooxdayda farsamo yaqaaninta adoo siinaba waan ku salaamayaa asxaabtayda meel kastoo joogaan waan salaamayaa dee maamadoo baxna waad salaamaysaa maamadu waa maamadayda koowaad meesha noo joogta weeyaan aad baan u jeclahay dee markaad yuusuf salaantay baan isiru baxna meeday moogta waa tahay barnaamijku halkiisii buu daawadayaal nooga sii soconayaa waxa ii soo istaago hortayda taagan mid ka mid ah dhalinyarada Nice Stars hore ayaa nagu sii soconaya dee halkan waxaa inoogu qaran hees la yidhaahdo xidigtii star ama xero awr ma jirtaa haa way jirtaa hayaay waa waray haye bal ii waran heesta xidigta star bal waxaa sameeyey abwaanka kooxda murtida culista maxamed shaafic axmed oo heedhe waxaan ku weydiiyey xidigtaasi maxay ahayd xidigtaas waa heesta horta abwaanka ergada ka jawaabi kara qisadu ka sameeyey qaabka uu sameeyey laakiin anagu waa hees kolley horta bal caawa aynu isxog waraysanee fanaaniinta iyagoo og sababta heestan loogu dhiibay dee ilayn idinkoon ogo ilaydin dhiibi maaye ayaa haddana markaad halkan timaadaan waxaad odhanaysaan waxaan u dhaafaynaa abwaanka waxaan u daynaynaa abwaanka war inuu jacayl jiro horta soo laislama garanin exactly horta jacaylku jira sinabi laakiin abwaanku markuu heesta sameeyo abwaanka horta heesta sameeyey wuu joogaaba so that abwaanku asaganba marka laga waraysto qisada dhabtaa ka warrami karaa because haddaan salaadano ka sheeke waxa laga yaabaa wax ka qaldaba waa tahay waan ku soo dhawaynayaa waad kala simantay fanaaniinta adigoo kaliya maaha fanaaniintii hore kuwa dambe markay halkan soo istaagaan qisada jacaylka ah ee heesta laga sameeyey dadka muhiim bay u tahay marka tala ahaan baan ugu soo jeedinayaa abwaanka sameeyeyow fanaanka badhu soo dhib heestu si ay macaanaato aad u mahadsan tahay insha allah abwaankan intaa ka waraysan doonaa ereyada maxamed shafiic baa sameeyey laxanka iyo muusiga cabdiraxiin axmed carab baa ku laray dee maxaynu sugnaa dee waa heestii أور إدانك حشاي حياتي معايا حبلا حدكتيو حفظ إستارة محوال ليو كنو الحيرة أور إدانك حشاي حبيبتي معايا وانا بحسلون حسكاقا كبير حكتي درحو حسوستك وحي حمانك دور حبيبتي معايا وانا بحسلون حسكاقا كبير حبتي درهو حسوستك وحي حمانك دور حبيبتي معان حبناها قروح ديو حرق صعدك لا حبيبها دبنك حدالي حبناها قروح ديو حرق صعدك لا حبيبها دبنك حدالي وحس حمداي قمعة حركي حنها الله قديقي وحس حمداي قمعة حركي حنها الله قديقي حبناها قروح ديو حرق صعدك لا حبيبها دبنك حدالي حبناها قروح ديو حرق صعدك لا حبيبها دبنك حدالي وحس حمداي قمعة حركي حنها الله قديقي وحس حمداي قمعة حركي حنها الله قديقي وحس حمداي قمعة حركي حنها الله قديقي
ilaa xirribaha dhabanka xaadale xubnaha quruxdiyo xaraga socodka ilaa xirribaha dhabanka xaadale waxeese xamdaay gamcaha xararkiyo xinaha lagu dhigay waxeese macaan gamcaha xararkiyo xinaha lagu dhigay xubnaha quruxdiyo xaraga socodka ilaa xirribaha dhabanka xaadale xubnaha quruxdiyo xaraga socodka ilaa xirribaha dhabanka xaadale waxeese xamdaay gamcaha xararkiyo xinaha lagu dhigay waxeese macaan gamcaha xararkiyo xinaha lagu dhigay waxeese macaan gamcaha xararkiyo xinaha lagu dhigay waxeese macaan gamcaha xararkiyo xinaha lagu dhigay waa tahay dee waaba la iga dhameeyo aniga lafteedana waxaan islahaa u xiisay dhabankaa iyo xinaha iyo waxaa dhacaya dee maanta lagama maarmee ka qayb qaadatid dee adiga laftaaduna aad caawi sira tijaabisid baaba islahaa ee marra waaxid waa adiga dhamayseen waa aad buu tahay mahadsan heestaasi waad ku mahadsan tahay ammaantii hablaha aad dulmartayna waad ku mahadsan tahay halkaaga iigu noqo ammaanta inta badan abwaanka iska mudan waa tahay maalin ciido carfi iyo udgoon ومالين عيدو عرفي إيو udgoon cibaadada raxmaankiyo ku cibaalan farxado dusha iyo